waayahay dagaalka maanta wuxuu galay maalinkii 12aad 2 isbuuc iska dheh ayuu dagaalka ku sii socdaa saacadaha 24 saac ay soo socto 2 isbuuc uu dagaalka galaya halkee marka xaalka uu maraya waaba ka sii dartay si aad u fahanto muuqaalkan ay sheekadayga dhan ku soo koobay muuqaalkan waxa qaaday kuwa Shiinees ah oo markab saaran oo marinka Hormuz joogay waxay ka qabanayeen kaale adiga sheeg waxa u jeedaan waa diyaarad daroon ah oo sii socoto waxayna ku habsanaysaa dekada Salalah ee Cumaan waa dekad ka badbaaday dhibaatadan dhan hal mar daroon agteeda lagu dhufto waa dekada ugu weyn Cumaan waxay soo qarramsadeen waa Iiraan ee Imaaraat Carabi soo qarramsatay Kuwait soo qarramsatay Ciraaq soo qarramsatay holaca dabka kaca warka dhan soo koobo xaalka maanta xaaladda daartii inaa ogaatid maalinka 12aad sawirkan ashakadii oo dhan ku soo koobay sawirkaaga muuqdo dad u malay inay AI tahay ma aha waxaas u jeedid film ma aha screenshot film laga soo qaaday ma aha AI ma aha waa sawir sax ah meesha la joogo ee la taagan yahay waa marinka Hormuz ninka hadlaa idin fasax waa sargaal sare ciidamada Iiraan wuxuu leeyahay dagaalka duqeyntii iyo wixii sidii u socotaa laakiin dagaalka wuxuu noqday yaa awood kule biyaha yaa awood kule ninka wuxuu leeyahay afkooda ku hadlayaa wuxuu leeyahay waxaan qabnaa yani hada Iiraan ahay uu leeyahay waxaan qabnaa hub badda hoosteeda ku jiro cid haystana aysan jirin oo markabka soo galo hoos ka galay burburnaay taasoo markaas u fiirisid xaqiiq ah sabab maraakiibta Mareykanka iyo Iiraan iyo Israa'iil waa ka soo agdhawaan yihiin marinka Hormuz waa ka soo agdhawaan yihiin Mareykanka xalay uu hadlay Donald Trump wuxuu yiri maraakiibta ha cabsanina gala dhulkaas gal u dhahay saak saddexdii saaka gashay waxa aad arkaysid inuu gubanay dhulku waa safe u dhahay xalay digliina Donald Trump gala iska marow dhahay shaalkiina soo qaata saddexdoo luntay saaka dalaq dhahay gantaala la dhahay xaalka marka meeshaas uu maraya waayay cid la yiraahdo Iiraan waxa soo shacbaxday hadal Trump inuu rabo in uu hadda albaabka wada xaajoodka uu furo maadaama bahasha si dheeraatay maadaama qaliijkii oo dhan Iiraan waxay tiri hadii lug liiga jibi lugta idinka jibinaa hada dhulka dhaco waa ila wada dhicaysiin kulatiga iska qabsanaya qaliijkii oo dhan baharkan wada galay saas ay tahay wadamada qaliijku waa iska ilaaliyeen inay dagaalka toos u galaan oo Iiraan ay faraha oo la tagaan Imaaraadka laba habeen duqeeyay laakiin inta badan hadda diirada waxay saarayaan wadamada qaliijka inay la dagaalamaan droniska iyo gantaalada habeen walba soo galo Iiraan sheekada labadii maalin hadda la soo dhaafay waxay aad u soo ridaa gantaalada kale ay ku soo dhex jiraan waa hal gantaalo kale ku soo dhex jiro balaayadaas soo ridaa qaab looga hortagone haba yaraatee ma jirto sheekada marka meesha maraysa marka waxa soo shacbahayo culays fara badan oo jiro culayska koowaad wuxuu yahay dhulka hoostiisa Iiraan dhulka hoostiisa ay wax ku sameysanaysaa waxa ay ku sameysanaysaa waxa ugu weyn barnaamijka nuclear-ka dhulka hoostiisa gaar ahaan Isfahan iyo dhulka u dhow Tehran ciidan lugta ina geesid ma ogiye qaab kale oo loogu burburin karo Mareykan wax walba la dhacay ilaa hadda wax dhulka hoostiisa ku jiro waa la garan lahayd taasoo ku muujinayso waxa jira tuhun ah in Iiraan ay boobsiisanayso hubkeeda nuclear-ka ay boobsiis ku sameynayso halkoo bam xitaa inay sameystaan nuclear ugu horeeyay inay rido baf cabsaas waa soo shacbaxday ciidan lugna lama dhigi karo oo cidii Iiraan ahayd waxay u muuqataa inay hal dhinac ka soo wada jeesteen oo xitaa laba qof oo mudaharaado oo dawladda Iiraan hadda la soo doortay diidan waa la laayahay taasoo meesha ka saarayso in ciidan lug ah geenteeda ay halis weyn tahay taas waa taas kurbadeeda ay wadataa hadal kale oo maanta ka soo yeeray Iiraan ayaa wuxuu ahaa waxay leedahay haddii mar dambe diyaaradaha Mareykanka iyo diyaaradaha Israa'iil dekadaheena meesha ay ka hadlayso Iiraan
وماشان إلا حد aan la taabanin Kirk Island jasiiradan hadda idinku soo dhaweynayo oo hal mar la duqeeyay labadii habeen oo dagaalku uu furmay laakiin waa meesha shidaalka 90% ay kasoo qaybta xasaas waa dhigista 90% shidaalka Iran meesha ay kasoo dhoofso jasiirad yar oo dhulkeedana u dhow laakiin ka yara baxsan waa meena waxa lagu leeyahay kuwa Shiinayska maraakiibta Shiinayska hadda arkayseen kuwa wiilasha kamerada bahasha qaaday hormuuska saas u galaan Iran shidaalkeeda iska dhoofsanaysaa marka Iran waxay tiri warkaad in soo koobo Mareykan iyo Israa'iil damac wuxuu yahay in jasiiradaas la duqeeyo oo shidaalka iyo dhoofinta iyo dekadaas wali aan la taabanin in la burburiyo Iran maanta hadal soo saartay waxay tiri hal gantaale ku dhufto Turkiga ha dhihin Greek ha dhihin hal dekad oo gantaalkeena meesha uu gaaro dhulkaan oo dhan wax alaali wixii dekad ku yaal dukumtaa kuma ka dhigayna taasoo isla markii abuurtay in Turkiga Mareykan uu la hadlo Israa'iil ee telefoon u diray ay dhahaan had duqeynayna dhul meeshaas aan ugu duqeynayna anaga hadda yaaban Sacuudiga iyo la qaramsaday anaga ma rabna gantaalo socdo oo biibaayo oo dekadaha Turkiga iyo Greega iyo ilaa meel alaali meeshay gaaraan sawaariikhda ugu dhaadheer Iran ay haysato waxay gaarayaan ka gadaal Greega ilaa Soomaaliya way gaarayaan marka waxa la leeyahay adduunka dhan wuxuu leeyahay dekadaas yar ee Kirk ah hanagu taabanina qaybtaas gab u siiya Iiraanta dhinaceeda kale ka duqeeya Israa'iil iyo Mareykanne riishada farta ku hayaan adiga marka intaas soo korortay dagaalka hadda oo dagaalkii badda biyaha u batay ee jasiiradan oo indhaha lagu wadahay Iiraan oo leh waa meeshii aan dekadaha dhulkan ku yaalo dhan gantaalkan u gaar ku burburin lahaa